هذا إلهي كبعدي وحن سلامة يا قراتك عقاشة وحقارتك بيش جامع سيادة هالكن السبيل أنا جو كهالله مقعة جدي قفلتها على مسار كقراتك بيش جامع سياد هالكن شغلي أنا كهيني أنا جو مقعة دي كهالله جدي قا وحن سلامة يا ضمان قضياش يو قراتك سلام كبعدي هذه عن بالوحي يردبوا إنه هوشينا ومركي هراء هاي غير الصوت شيء مركي هراء الصوت حنا وإنتي وقرأتكم إنتي إلهي هم حريستي صوت حنا إيو هورو مركي دم بقولة كده جودي عنك أي غاش يبيله نجوس وريتيين هذه عن وربحين ير إنتها كبحيو حلقي أنا جودي أحان أنا هوشان كعنت كوها إني وح كهر عيي وهوشان كعنت كوها هي عقاش جودي دورشة قرأت بيش جامع سياد وكاكوبنا شن حبنود ولقى الصوح ولا يسديد مدح بيش جامع سياد وتردو أي نقطة أفرتن إيو سديد عاقل ومركها يسكون غنيا أفرتن إيو سديد حبنود ayaa waxa bilaabantay 6dii bishan aynu ku jirno ee lixaad 6deedii in gudigaasi ay yeeshaan fadhigoodii u horeeyay oo laga arrinsanayay sidii loo dooran lahaa garaadka beesha jaamaciyad xilligii gudigaasi maalintii ugu horeysay ay uqaasha iyo gudigu way isugu yimaadaan 48 xubnoodba waxa ay cuqaash ku wareejiyeen xilkii doorashada garaadka beesha jaamaciyad waxa lagu wareejiyay gudiga doorashada garaadka beesha jaamaciyad oo ahayd 40 xubnood gudigaas 40 xubnoodii waxay shaqadoodii koowaad ka bilaabeen inay doortaan shirgudood ka kooban 5 xubnood gudigaasi waxay samaysteen xeer hoose iyo qaabkii ay u samayn lahaayeen in loo soo doorto garaadka beesha jaamaciyad gudigu waxa weeyaan waxa uu bilaabay xilliga 6da bisha laga bilaabo ilaa garaadka laga doortay shaqooyinkiisii oo farabadnaa iyo sidii ay markaa u soo xuli lahaayeen ilmo garaad Ismaaciil oo markaa ay ahaa 8 nin xubintii noqon lahayd garaadka beesha jaamaciyad sidii loo soo xuli lahaa ayay gudigu xilliga bilowday waxayna bisha 12keedii oo muddo 5 casho laga joogo xilligii gudigu ay shaqada bilaabeen ay isugu yimaadeen gudiga iyo cuqaashu hoolkii shirarku uu ka socday ee ahaa hotel kulan halkaas oo lagu go'aansaday in maalintaasi ahayd maalintii ay doorashadu dhacaysay iyadoo markaa la kala dooranayay oo la go'aansaday 3 nin ilmo garaad Ismaaciil ee xilliga nin laba nin ay daneynayeen garaadka iyo garaad jaamac oo ay markaa beesha daneynaysay in doorasho loo sameeyo maalintii bishu ahayd 12 ee Khamiista waxa halkaas ka dhacday doorasho qaab gacantaag ah oo lagu soo dooranayay cidii noqon lahayd garaadka beesha jaamaciyad codayntaas kama aanay qayb gelin cuqaash waxa codaynta xaq u lahaa gudiga doorashada cuqaashuna waxay ansixinayeen sidii xoor hoosaadka ku taalay waxa ay gudigaasi ninka ay doortaan
ayay markaa waajibkooda waxay ahayd in cuqaashu ay ansixiyaan. 40kii xubnood ee guddigu maalintaas waxay goobta xadir bay ku ahaayeen. waxaa doorashadii markii ay bilaabantay waxaa gacanta loo taagay oo markii horeysay guddigu aanu soo jeedinay in doorashada laga bilaabo cabdi garaad ismaaciil oo markaa aan meel wax coda ka helin goobtii doorashada codka uu helayna ay noqotay eber. waxaa ku xigay maxamed garaad ismaaciil ruush oo isagu goobta ka helay hal coda. waxaa ku xigay jaamac garaad ismaaciil oo isagu helay 38 cod hal codna uu ka aamusay. markaas sidaas buu wuxuu ku noqday jaamac garaad ismaaciil garaadka beesha jaamac siyaad oo xilligaas annagu ah iyo cuqaal iyo guddiba jaamac siyaad u wada aqoonsaday inuu yahay garaadka beesha jaamac siyaad garaad jaamac garaad ismaaciil ducaali. markii aanu ka soo gudubnay hawshaas ah in la doorto xubintii noqon lahayd garaadka beesha jaamac siyaad oo la doortay ayaa haddana waxaanu u soo gudubnay in aanu haddana bilowno hawlihii caleemasaarka. hawshaa caleemasaarka oo iyaduna ay ahayd hawl ballaaran ahayd aanuna samaynay haddaanay guddiga fulinta ilaa 7 guddi oo hawshaa ka shaqaynaysay oo guddi waliba hawsheedii loo xilsaaray ay haysay. run ahaantiina hawl aad u adag oo muddo kooban lagu soo diyaariyey oo ballaaran oo si fiican loo soo shaqeeyay ahayd. marka koowaad waxaanu golaha garaadka hortiisa uga mahadnaqaynaa guddiyadii soo shaqeeyay hawlaha soo qabtay ee ay ka mid ahaayeen guddiga logistikada oo hawlo aad u ballaaran qabtay iyo qolada saxaafadda. intaasba mahadcelin baan uga samaynaynaa golaha garaadka hortiisa. waxaa hawshaas la soo gabagabeeyey 22kii bisha 6aad waxaa lagu shubay garaad jaamac garaad ismaaciil maalintii caanashubka ayay noqotay. waxaana lagu caanashubay 22kii bishii 6aad 2009. halkaas baa maanta gulaheenna waxaa diyaar inoogu ah garaadkii beesha jaamac siyaad garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale oo ah garaadka beesha jaamac siyaad ayna aqoonsadeen guddi iyo cuqaal iyo waxgarad iyo inaga oo maanta ka haysana taageero dhammaan isimada dhulbahante iyo kuwa kale ee Soomaaliyeedba. garaad jaamacna uu xubin ka yahay garaadada golaha garaadada beelaha dhulbahante uu xubin ka yahay. waa guulo waaweyn. insha Allah tacaala waxaanu rajaynaynaa guulaha iyo guulo kale ka sii badanba inaynu gaari doono. waxa aanu annagu dee hadafkayga ku soo gabagabaynaynaa inuma aanay dhammaanin hawsheennii aynu qaban lahayn ama inoo taalay beesha jaamac siyaad. waxaa inoo yaalla hawsheenna haddeer caleemasaarka oo halkaa inoogu soo gabagabowday iyo hawshii kale ee ahayd sidii loo dooni lahaa midnimadii iyo waxyaabihii u baahnaa wax laga qabto ee beesha jaamac siyaad loona baabi'in lahaa haddii ay jiraan waxyaaba turxaana. waxaan hadalkaygaas markaa aan jeclahay haddaanu annaga guddigii doorashadana iyo guddigii caleemasaarka labadaba hawloodba annagu aan isku haynay in haatan loo baahan yahay in xilkii lagu wareejiyo guddi kale oo hawshii halkaa ka sii ambaqaada oo xilkii wada. cuqaashuna ay u baahan yihiin sidii garaadka markaa shaqadii dambe hadhay iyo hawlihii dambe ee loo baahnaa loo sii qaban lahaa. annagu haddaanu guddinahay warbixin intaasaan ku soo koobaynaa warbixintayadii.